inta la xaqiijiyay laba ruux ayaa dhaawacantay kadib markii askari saarna mooto bajaaj uu xabad ku dhuftay wiil kale oo watay mooto bajaaj xabadii wiilkaasi ku dhacday ayaa ka dhex baxday waxayna sii dhaawacday nin watay gaari dameer goobta marayay goobjoogahan ayaa warbaahinta u sheegay sababta askariga wiilka bajaajlaha uu xabadda ugu dhuftay kadib markii biyo wasaq ah oo taayirka mootada ay ku fardhisay askariga taasina uu ka xanaaqay askariga wiilkan xabadooyina lagu dhuftay wiil kale oo meesha fadhiyay xabadda afka ay ka gashay way ka baxday dameero waday wiilka kale askariga ayaa biyo la gaarsiiyay basho ku bajaajkoos labada bajaaj biyo isku daadiyeen biyo ya gaareen askarigu waxa xanaaqay biyo marka waa soo daba gaaray wuu isku horgooyay saasoo xabad ugu furay xabadii meesha wiilka dishay wiil kale oo dameerley oo meesha fadhiya afka ay ka gashay dhinac kale uga baxday waa ku dhaawacmay afka intay ka gashay inta uga baxday dameerliya wiilka bajaajkana waa dhintay dhiigiisa xaguu yaalaad aniga raashiinaan bulkeed halkaas geeyay waa ka soo noqday meesha marka saas ay arinta ugu dhacday iyo dameerkoo dhaawacmay ambalaasa mar dambe timid wiilka labada wiil ay qaaday kii dhaawacay iyo kii meedka ahay saddex askari ay yimideen maxay baqaaday ninka mootada maba ka soo degan mootadina waa wala tagtabo lama haayo ninki mootadina hadda dhawaa meesha laga wada degmada agteeda loo wadaa la dhahay la qaaday wiilashii meedkii dhaawacay gasay jiraan jabigu waa degan yahay waa ka saaray nacsi waa kala socdaa laakiin haday mar uu istaagay hadda waa kala socdaa oo baabuurtaas ku xirtay falkan ayaa ka dhacay iskuulka dhagaxtuur wadada ka degta isgoyska dabka ee aada dhanka isgoyska bakaaraha ciidanka booliska ayaa soo gaaray goobta waxaana ay halkaasi ka qaadeen labadii ruux ee dhaawac ahaa wadaha mootada ayaa waxaa soo gaaray dhaawac culus waxaana la sheegay in goobta ka baxsaday askarigii falkaasi geystay